السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هذا مركز الجنالك فوزيسي ميديا هدي أدكو عصبت هاي الجنالك سبسكرايب لايك شير كومنت قنبليلك فرا تاد لو لسعته مقالة أن سوقن مرة والبا وحان كشقينا أما جعلنا إن أصحابتنا ألو داقن برنامجه آد مهمة كوها صحيسو له أصحابتنا أنا كان أنكو إيرقلين أما مرة والبا أكو قنعنينو أصحابتنا ما أنت محاولنا maanta haddii aad arki jirtay Abuukar Culusow haddii aad dhegeysaysay ama madax barar saad u taqaano oo dhahayo faranjiir iyo mindhicir sheekeynayo maanta reer cadaado ayaa keenay in ayax ay cunaan ayax kuwaasoo kusoo duulay deegaankaas dheheenna reer cadaado ayaa ku sheegay inuu caafimaad u yahay ayaxa cudurro badan daawo iyo culumo baneynaysa cunitaanka ayaxa horta rabbaani ahaan waa wax bannaan shay bannaan oo la cuni karo laakiin waa markii ifan ay dhacdo baahi saa'id u daran laakiin inta la heli karo wax kaloo looga gudbi karo waa la samey karaa laakiin haddii ay jiraan caqabad kale oo looga gudbo ayax oo keliya cunto dadka dhan ay u tahay waa muhiim in la cuno laakiin ayagoo laga maarmo waxay sameeyeen cadaado barnaamij aan macquul ahayn bal ila daabo reer cadaado iyo ayako sharaxayo cudurrada caafimaadku yahay ayaxa mid kale asxaabteena waxaan weydiinaynaa ama fakarkaada uu kasoo dhiibanayo ma jeclaaleed inaad cunto ayax fakarkaaga waa muhiim comment inoo soo qor ifan haddii ay dhacdo cunto la'aan ama badlaan waa la yaaba laakiin cunto la'aan ayadoo jirin wax looga maarmi karana adi ahaantaada ma cuni lahayd ayax واسيدي فكر كاي بل إلى دابو وقال هذه لياوي دونتا أي حيو لشرحها واربحين إيران ومقالة عدادو maamul goboleedka galmudug waxaa laga cunayaa ayaxii waa kan macalin cali baynoos oo ayaxii cunistiisa wada waa ka sida loo cunayo u fiirso baalaha laga jarayaa futo yartaa laga jarayaa asiga waa ka bacu ku wataa meesha u dhooban yahay waa ka bacda ku jira hadda waa kaasa madaxa iyo xabadka markuu soo haro ayaadana maxaan ku radaa dalaq siinaysa aye wakaas xalaal weeye hal cuno bahal waa dad ku dhaqma diinta maadaama maytataani uu ka mid yahay xalaalsha ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa dhab oo ayaamahan dambe waxa aad wararka ugu jiray iyo social mediaha dad Soomaali ah oo ayaxii cunaya in la arkay iyada awal aad mooday dhaqan ahaan dadka Soomaalida ah ayaxa cunitaankiisa inaysan dhaqan u lahayn ayaxa waa xalaal culimada muslimiintuna waa ku ijmaaceen ayaxa cunitaankiisu inuu xalaal yahay أحاديث دورة يا نبي كسبنات عليه الصلاة والسلام وحلال المديس وكعديي وحكم ذا حديث كي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويري نبي وحير عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث كان النبي وحنا كشيء عليه الصلاة والسلام وحير وحى لينو حلاليي لبا ميد لبدا ميدنا waxa weeye waa kalluunka iyo ayax labada dhigana waxa weeye waa beerka iyo beeryarada marka waad aragtaa xadiiskaas ayaxu isagoo baqti ah oo horay u dhintay ayaa la cuni karaa waa xalaal sidoo kale xadiiskii kale oo Abdullah ibn Abi Awfa رضي الله تعالى عنه وصحيحين كأورنيان البخاري ومسلم وحيد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات وكنا نأكل معه الجراد وحان النبي قال لدولي عليه الصلاة والسلام تضبط دولان أما 6 دولان أيها النبي قال لدولي وحان نعوني دولان مدى صعودا إيضا النبي قلنا وهليه عليه الصلاة والسلام أيها أيها نعوني النبي حديث عد ayaa marka xalaalnimada ayaxa ku soo arooday hadii isagoo horay u baqtiyay la helana waa la cunaya inta laga cuni karo hadii isagoo nool aad soo qabsatidna
madaxa intaad ka goysid ayaad inta hilibka ahoo waa la arkayaa markii baalasha sare la iska jaro inta hilibka ah oo ilaahay ku abuuray ayaa la cunaya marka ayuxu sidaas ayuu xalaal u yahay bal min atayibaad weeye oo inta laga cunaa dadka yaqaanaa aad bay u jecel yihiin suuqyada adduunyada aad baa loogu gadaa weliba wadamada Asia ayaa aad looga cunaayo dadku qiimo weyn ayay siiyaan lacag badan ayaa laga bixiyaa isagoo ama kiilaad ah ama si kale maxaan ku yiraahdaa loo jaangooyay marka sidaas ayaa ayuxu wuxuu u yahay shay xalaal